لا شك أن محمدا خير الورى ريق الكرام ونخبة الأعيان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا برنامج كان نولينتا إسلامك. موضوع maanta waxa weeye miyuu waxyigu istaagay oo joogsaday rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam ka bacdi. يعني أنت رسولك إن كذب بيسي ميا الله وحيجا شوشي ووحيون شري أدوميز مسا الله ولي والله حريرا الله بالله أدوميز كأوطانه. دين الإسلام كمويه دينها كلا أولامي وحي آمن سيهين إن وحيجو قاي أو الله عن الله هذي شري أمره هره لكن aanu iminka cidna la hadlin ama u waxyoon. markase muxuu ahaa diinta islaamka iyo kitaabka barakeysan ee qur-aanka raaco waxa weeye alle addoomihiisa ka uu doono weli waa la hadlaa oo waa u waxyoodaa. hase ahaatee in badan oo muslimiinta ka mid ah ayaa sidoo kale qabta in waxyigu istaagay. waxay u haystaan in waxyigu go'ay oo alle aanu intii ka dambeysay rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam aanu cid dambe la hadlin ama aanu u waxyoon. sidaas aan idiin sheegay kama sugna qur-aanka iyo axaadiista rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam. waxay u haystaan in haddii alle qof la hadlo ama u waxyoodo inay tahay inuu u soo dejiyo kitaab ama shareeco. qaarkood waxyiba haddii ay maqlaan waxay u haystaan in diin kale oo aan ahayn diinta islaamka la keenayo. waxay marka isku khaldayaan soo dejinta uu alle kitaab soo dejiyo iyo hadalka ama waxyiga alle addoomihiisa la hadlo ama u waxyoodo ka uu doono. waxyi kitaab ama shareeco soo dejiyaa waa go'ay, waayo kitaabka qur-aanka ah ayaa alle ku dhammaystiray soo dejinta kutubta uu soo dejin jiray alle. waana kitaabkii u dambeeyey isagoo alle inoo sheegay ka hanuunka doona diin aan ahayn diinta islaamka inaan laga aqbali doonin, aakhirana uu ka mid yahay kuwa khasaaray. waana sida alle aayaddan inoogu sheegay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه
wahuwa fi laakhirati min alkhaasiriin waa suuradda waxaa weeye aali cimraan waxaa marka go-ay ee la joojiyey waa kitaab dambe laakiin xiriirka alle ma go-in waxaanu u furan yahay muslimiinta aaminsan diinta islaamka sidaas awgeed ilaa qiyaamaha diinta jiraysa waa diinta islaamka cid markaa aan ahayn marka hore islaam ahayn oo xagga eebe ka gaadhi karta maqaam ama darajo dhowaansho ah ma jirto waayo soo degista diinta islaamka ayaa eebe dhismihii diinta ku kaamil yeelay kuna taam yeelay nimco noocay u tahayba sida alle qur-aanka inoogu sheegay ee yidhi acuudu billaahi min ashaytaani arajiim alyowma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa radiitu lakum alislaama diina waa suuradda waxaa weeye almaa'ida haddii marka la qadaro in cidi maqaam dhowaansho ah ka gaadho xagga eebe xagga alle waa inuu noqdaa qof islaam ah kaas oo taabacsan adeecsanna nabigeena muxamed sala allahu calayhi wasalam sida alla yidhi acuudu billaahi min ashaytaani arajiim waman yudici illaaha warasuula faulaa'ika maca aladiina ancama allahu calayhim min alnabiyiina waasidiiqiina waashuhadaa'i wasaalixiina waxasuna ulaa'ika rafiiqa waa suuradda waxaa weeye annisaa aayaddani waxay inoo caddaysay in addoonkii buuxiya labadan shardi inuu adeeco alle iyo inuu adeeco oo u raaco si dhab ah sunnaha nebigeena moxamed sala allahu calayhi wasalam waxaa la arkaa in eebe haddii uu doono ku manaysto darajooyinka iyo nimcooyinka aayaddani xustay oo kale ah ta koobaad oo ah nebinimo laakiin taabacsan khaatima nebiyiin una ah khaadim u ah darajada labaad waxaa weeye sadiiqnimo ta saddexaad waxaa weeye shahiidnimo ta afraadna waxaa weeye saalixnimo waxay aayaddu sida ku cad reebtay in islaamka mooye diimaha kale ay nimcooyinkan aan hadda idiin magacaabay ay ka xidhan yihiin waayo islaamka ayaa eebe ku dhammaystiray koritaanka diimaha oo ka soo bilaabmay nebi aadan calayhi salaam nimcooyinkii diimahoo dhanna uu ku taam yeelay waa sababta loogu yaboohayo ama loogu yeedhayo dadyooga weli haysta diimihii ka horeeyey islaamka waayo diimahoodu ma gaadhsiin karaan nimcooyinkan eebbe ku manaystay diinta islaamka macnuhu waxa weeye waa aaminka iyo ku dhaqanka diinta islaamka ta alle dhowaysto addoonka u doono alle u dhowaanshahan maqaamka u sareeya waa in addoonku alle la yeesho xidhiidh oo alle la hadlo alle u waxyoodo salaad walba waxaynu alle ku barinaa suuradda alfaatixa waxaynu eebbe ka barinaa inuu inagu hago inagu toosiyo dariiqa toosan kaas oo ah ka ay mareen intii uu u nimceeyey waxaynu nidhaahnaa acuudu billaahi min ashaytaani arajiim ihdina asiraada almustaqiim siraada aladiina ancamta calayhim غayr almaqduubi calayhim wala daaliin nimcooyinka aynu alle ka baryaynaa waa afarta maqaam ee aan soo sheegnay waa nebinimo waa sidiiqnimo waa shahiidnimo waa saalixnimo waxaan alle ka baryaynaa in alle ina gaadhsiiyo maqaamka uu addoonka alle la hadlo
ee u waxyoodo. islaamnimadana heerka u sarreeya waa in addoonku gaadho maqaam uu alle xidhiidh la yeesho. alle waxaynu ku aaminsannahay qayb ma aragno, ma arki karro. marka kitaabka qur-aanka aad raaco, inta aynu dunidan ku noolnahay sida qura ee qofka bani aadamka ahi ku xaqiiqsan karo ama ku hubi karo jiritaanka alle waa in alle la hadlo. ma aha in alle qof kasta la hadlayo ama qof kastaa nebi noqonayo, laakiin marka in badan oo saalixiin ah ay ka markhaati kacaan jiritaanka alle iyo inuu alle la hadlo, waxay xoojinaysaa iimaanka kuwa aan weli maqaamkan soo gaadhin. si aad u fahamtaan in waxyigu furan yahay, waxaan idiin soo bandhigayaa adilooyin kale oo ka sugan kitaabka qur-aanka ah iyo axaadiista rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam. waa barnaamijkan iyo ka ku xiga. adilada u horeysa qur-aanku si uu u kala saaro allaha xaqa lagu caabudo iyo ilaahyada beenbeenta ah ee baadilka ah, wuxuu inoo sheegay in alle baryadeena maqlo oo inala hadlo, inoo jawaabo marka aynu wax weydiisano. ilaahyada baadilka ahna wuxuu ku tilmaamay in aanay waxba maqlin, hadlin, qofna u jawaabin. waa wax indhala oo dhegala, awoodda hadalkana aan lahayn. waxaa alle qur-aanka ku yidhi: acuudu billaahi min ashaytaani arajiim, waman adallu miman yadcuu min duuni illaahi man laa yastajiibu lahu ilaa yowmi alqiyaama wahum can ducaa'ihim qaafiluun. waa suuradda waxa weeye alaxqaaf. macnuhu waxa weeye kee ka baadi badan ama ka baadiyeysan ka barya alle ka sokow cid kale oo aan alle ahayn, kuwo aan u jawaabayn ilaa qiyaamaha, oo weliba aan ka warqabin in cidi bariday. aayaddani kuwa aan jawaabta laga helin ayay ku tilmaamtay ilaahyada baadilka ah. macnuhu waxa weeye alle jawaab aad maqasho ayaad ka heshaa marka aad barido. waxaa kaloo qur-aanka ku xafidan in intii nebi muuse calayhi salaam ka maqnaa qoonkiisii, in saamiri ugu sheegay dibi inuu yahay ilaah. u fiirso waxa dibigan qur-aanku ku dhaleeceeyey in aanu noqon karin ilaah, oo ah waa in aanu hadli karin, dariiqa toosanna aanu ku hanuunin karin. acuudu billaahi min ashaytaani arajiim. watakhada qowmu muusaa min bacdihi min xulliyihim cijalan jasadan lahu khuwaar alam yarow annahu laa yukallimuhum walaa yahdiihim sabiila itakhaduuhu wa kaanuu daalimiin. suuradda waxa weeye alcaraaf. waxaa aayaddan alle yidhi: miyaanay arkayn inaanu hadlayn kuna hanuuninayn dariiqa toosan? haddii marka aan alle la hadlin addoomihiisa una jawaabin marka ay wax weydiistaan, maxaa markaa u dhaxeeya allaha xaq aynu ku caabudno iyo ilaahyada baatilka ah ee qur-aanku inoo sheegay? aayaddani waxay inoo caddaysay in kuwa u haysta inaan alle la hadlin addoomihiisa ay lunsan yihiin, waayo kama sugna kitaabka qur-aanka. lama odhan karo
alle berigii hore ayuu la hadli jiray addoomihiisa laakiin iminka lama hadlo haddii sidan lagu doodi karo qur-aanku kuma xujeeyeen kuwan dibiga caabudayay miyaanay arkayn inaanu la hadlayn macnuhu yahay allaha xaqa lagu caabudaa waa ka idin jawaaba macnuhu waxa weeye allaha xaqa lagu caabudaa waa ka idin jawaaba ee idinla hadla waxyigu ambiyada alle uma aha khaas ee alle addoomihiisa kale ee aan ahayn ambiyada iyagana ka uu doono alle waa la hadlaa waxaa alle qur-aanka ku yidhi acuudu billaahi min ashaytaani arajiim wamaa kaana libasharin an yukallimuhu allaahu ilaa waxyan aw min waraa'i xijaab aw yursila rasuulan fayuuxii biidnihi maa yashaau innahu caliyun xakiim waa suuradda haweeye ashuura aayaddan waxaa alle inoo sheegay 3 siyaabo oo uu la hadlo addoomihiisa waxyi uu toos ula hadlo waraa'i xijaab waa kashaf wax ku tuso isagoo soo jeeda alle wax tuso ama uu hadal maqlo iyo in alle u soo diro malag waxyiga alle soo gaarsiiya waxaa kale oo aayaddan inoo caddaysay in alle la hadlo addoomihiisa aan ambiyada ahayn alle wuxuu yidhi wamaa kaana libasharin an yukallimahu allaahu ma odhan wamaa kaana linabiyin ma odhan alle ma magacaabin nebi wuxuu yidhi bashar bani aadam buu yidhi maxaa u daliil ah maxaa daliil u ah in alle bashar aan nebi ahayn inuu la hadlo ama u waxyoodo qur-aanka aan u noqono waxa alle la hadlay nebi ciise hooyadii waxa alle yidhi acuudu billaahi min ashaytaani arajiim id qaalat ilmalaa'ikatu yaa maryamu ina allaha yubashiruki bikalimatin minhu ismuhu lmasiix ciisa ibnu maryama wajiihan fi ddunyaa waalaakhira wa min almuqarabiin waa suuradda hawee aali cimraan aayaddan waxaa alle inoo sheegay in malaa'igi u timi nebi ciise hooyadii maryam radia allaahu canha oo ku tidhi waxaa alle kugu bushaaraynayaa masiix ciise ibnu maryam waa intii aanu dhalan weeye bushaarada malaa'igtu maryam radia allaahu canha u keentay miyaanay waxyi ahayn waa waxyi ay alle ka keeneen miyaa waxyigan maryam calayhi salaam miyuu waxyiguu ka dhigay nebi ama rasuul miyuuse u keenay kitaab maya kama dhigin nebi kitaabna uma soo dejin wuxuu ahaa oo qura bushaaro ama waxyi alle uga yimi waxa kale oo alle la hadlay nebi muuse hooyadii waxa alle yidhi acuudu billaahi min ashaytaani arajiim وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين وسورة حوي القصص waxaa aayadan alla yidhi waxaan u waxyoonay muuse hooyadii waxaa alla ku yidhi nuuji markaa u baqatana kuu rid badda hana baqan hana murugoon waanu kuu soo celin waxaanan ka dhigay mid rususha ka mid ah marka muuse calayhi salaam ilmaha ahaa ayay hooyadii ogeyd oo alla u sheegay inuu noqon doono rasuul sidee ku ogaatay alle ayaa waxyi
ugu sheegay sida aayadani inoo sheegtay. miyuu waxyigani muuse hooyadii ka dhigay nebi ama kitaab ku soo dejiyey? sidoo kale waa maya. haddana alle wuxuu yidhi wa awxaynaa ilaa ummi muusa. su-aashu waxa weeye, miyaan waxyigii alle u soo dejiyey nebi ciise hooyadii iyo nebi muuse hooyadii oo kale aan alle u soo dejin karin ummadda rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam? jamaacada axmediya waxaan qabnaa in ummadda islaamka waxyigu u furan yahay sida alle ula hadli jiray ummadihii hore oo kale, laakiin ma aha in alle kitaab ama shareeco kale ku soo dejinayo ama qofka uu la hadlay uu noqonayo nebi noqonayo. waxaa kale oo alle u waxyooday xawaariyiintii rumaysay nebi ciise calayhi salaam. alle wuxuu qur-aanka inoogu sheegay inuu ku yidhi oo u waxyooday inay alle iyo nebi ciise calayhi salaam rumeeyaan. waxaa alle qur-aanka ku yidhi acuudu billaahi min ashaytaan rajiim waid awxaytu ila alxawaariyiina an aaminuu bii wa birasuulii qaaluu aamanaa washhad biannana muslimuun. waa suuradda waxa weeye almaa'ida. waxaa aayadan alle yidhi waxaan u waxyooday xawaariyiintii oo ku idhi aniga iyo rasuulkayga aamina. xawaariyiintii rumaysay nebi ciise calayhi salaam ma kitaab ayaa alle u soo dejiyey? sidoo kale maya. haddana alle aayaddan wuxuu inoo sheegay inuu u waxyooday oo la hadlay. waxay noqonaysaa ayaan daro marka reer banu israa'iil alle la hadlay rag iyo dumar aan ambiyo ahayn in la aamino in ummadda khaatima nebiyiin sala allahu calayhi wasalam aan alle la hadli doonin ama alle u waxyoon doonin. waxaase mahdigu calayhi salaam inoogu bushaareeyey in aan alle xidhiidhka ka goyn ummadda khaatima nebiyiin sala allahu calayhi wasalam ee la hadlo una waxyoodo ka uu doono. in badan oo ka mida jamaacadda axmediya ayaa markhaati ka ah in alle la hadlo ka uu doono. ujeeddada waxyigu waa in uu qofka geliyo nolol geliyo ruuxaani ah oo alle u dhowaansho ah. waa dhowaansho alle weeye. sidee markaa loo odhan karaa la hadalka alle la hadlo addoomihiisa ama u waxyoodaa waa joogsaday oo waa istaagay? ma joogsan alle ma joojin. qof maqaamkan gaadhi kari waayey ayuunbaa odhan kara alle lama hadlo addoomihiisa. muxuuse ugu jawaabayaa qofka sidaa u haystaa marka kumaan kun oo ka mida jamaacada axmediya ay ka markhaati kacayaan oo ay leeyihiin annaka ayaa alle nala hadlay? waxaan rajaynayaa inaad fahamteen in alle la hadlo una waxyoodo ka uu doono, taas oo ah in alle dhowaystay. waa alle u dhowaansho weeye, mase aha in alle kitaab ama shareeco qofkaa uu ku soo dejinayo. mana aha in addoonka alle la hadlo ama alle u waxyoodaa
inuu noqonayo nebi noqonayo ama noqonayo rasuul noqonayo. waxaan ka soo hadalnay inuu alle la hadlay nebi ciise hooyadii radi allahu canha, inuu la hadlay nebi muuse calayhi salaam hooyadii radi allahu canha. midkoodna nebi ma noqon, midkoodna alle kitaab kuma soo dejin. haddana qur-aanka waxaa ku cad in alle u waxyooday. sidoo kale qur-aanka waxaa ku cad in alle u waxyooday xawaariintii rumaysay nebi ciise calayhi salaam. marka qur-aanka la raaco waxa weeye alle addoonka uu doono waa la hadlaa. macnaheeduna waxa weeye in alle addoonkaa uu dhageystay. waxaan filaya inaan fahanteen in waxyuu furan yahay. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني.